And for the first time, thank you very much and welcome to the MMTV. si kooban noogu sharax taariikhda iyo sheekada ku saabsan background and how you find Islam. markii aad rumaysay diinta Islaamka. Wassalatu wassalamu rasulillah. It's my pleasure to be here on MMTV, and we like to also congratulate the channels. Ilaahay ayaa mahadle. Waana farxad inaan maanta halkan joogo. Waxaa kale oo aan bogaadinayaa MMTV oo ah channel waqti kooban jiray balse magaciisu uu baahay waxaana arintaasi aan kala socday anigoo ku sugan wadanka Qatar. Even though I'm living in Qatar, your fame has spread. Thank you. MashaAllah. Thank you. My finding of Islam, of course, I was born in Jamaica, grew up in Canada. marka la eego habkii aan ku islaamay waxaan ku dhashay wadanka Jamaica waxaanan ku koray Canada waxaanan muddo ku noolaa Malaysia. markii aan dhiganayay jaamacad ku taalla Canada waxaan qabsaday amaba aan ku tacalluqay fikirka shuuciyadda inkasta oo aan ku barbaaray masiixinimo. Though I was raised a Christian, I shifted to politics. haddana waxaan u leexday siyaasadda waxaana ay ahayd dabayaaqada lixdanaadkii ilaa horaanta toddobaatanaadkii markii aan hoos u galay fikirka shuuciyadda. Followed and gone into communism quite deeply. I came out. waxaan garwaaqsaday This wasn't really the answer. inaanan haynin jawaab sax It ah. caused me to look elsewhere. markii aan darsay dhex galay oo aan isbarbar dhigay diimo afkaaro iyo nidaamyo kala duwan oo caqiidooyin ah Comparative. kuwaasi oo kala ahaa amaba la xidhiidhay shuuciyadda masiixiga iyo islaamka. waxa ugu dambayn aan xaqiiqsaday in islaamku yahay caqiidada ugu fiican. Had the best of all. Everything that was good in communism is in Islam. sababtoo ah wax kasta oo wanaagsan oo ku jira diinta masiixiga islaamkana waa ay ku jirtaa. wax kasta oo fiican oo ka mid ah shuuciyadda isla markaasina waa laga helayaa islaamka. wax kasta oo uu ku fiican yihiin hinduugu iyo dadka aaminsan caqiidooyinka shakhsi caabudka And Confucianism is in Islam. In Hinduism, dhammaan islaamka ayaa laga helayaa. seemed to gather all of the good. islaamku waa diin wanaagyadii oo dhan ay ka buuxaan. And that convinced me that this was the right way. koritaankaagii iyo muslimnimadaadii kadib sidee ayaad cilmi qoto dheer ugu yeelatay diinta Islaamka? I converted in Canada, in Toronto, Canada. waxaan ku islaamay Toronto sanadihii toddobaatanaadkii markaasi oo aanay islaam badani dalkaasi joogin inkasta oo markii dambe ay yimaadeen muhaajiriin islaama oo badan balse xilligaasi ma joogin culimo islaam ah. waxaanan xaqiiqsaday inaanan joogi karin Canada oo ay tahay inaan dhex tago dalalka muslimiinta. So I tried to learn as much as I could within the first year or two of my Islam. Then I realized that I had to leave Canada and go elsewhere, to the centers of Islam. And labadii sane ee ugu horreeyey muslimnimadayda halkaasi ayaan ku bilaabay fahamkii aasaasiga ahaa ee islaamka sida soonka iyo waxyaabaha kale ee la samayn karo marka la gudanayo waajibaadka islaamka. surface practices which I could learn from the common Muslims, what to do, to pray, to fast, etc. But laakiin faham gundheer islaamka umaan yeesheen haddii aanan ka tegi lahayn Canada. waxaanan u boqolay jaamacadaha Madiina iyo Riyaad ee Sacuudi Arabiya halkaasi oo aan si qoto dheer uga bilaabay barashada culumta diinta islaamka laga bilaabo digriigii koobaad master ilaa PhD.